bulshada Soomaaliyeed mas'uuliyintoodu ay dhinacyada taagan yihiin haday aan lahayd gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka agaasimayaasha gudoomiyaasha degmooyinka iyo bulshaweynta afarta degmo ee Kaaraan Yaaqshiid Boondheere iyo Shibis dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib waa jeclaan lahaa codbaahiye intaan ka fiican midkaan ka fiican inaan idinkula hadlo maxaa yeelay bulsho intaan la eg u diyaar garowday danihii guud si mas'uuliyintoodu ayan ula hadlin uma taalo sax maaha sidaa darteed dhaliishaas cidda iska laha qaadan doonta laakiin waa u mahad celinayaa bulshada afarta degmo ee maantay isu diyaariyey inay magaalooyinkooda degmooyinkooda inay nadiifsadaan middaas ayada ah waxa ay ka turjumaysaa diyaargarowgiinna iyo sida aad halkan maanta isugu timaadeen iyo qalabka aad wadataan oo dhammaantiisa ah qalabkii nadaafadda waxa ay ka turjumaysaa sida aad uga jawaabaysaan halku dhigeennii ahaa bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah waxaan doonayaa halkan inaan idin soo gudbiyo inaan idinkugu soo gudbiyo salaan aan idinkaga sido madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha dalka madaxdaas oo aad og tihiin mas'uuliyinta idin hor taagan inay ayagu idin soo xuleen oo ay idin dooreen taasoo macnaheedu ay tahay haddii madaxda ay soo direen ay bulshada si fiican ugu adeegtona abaalkeeday leeyihiin oo ayagaa suuro geliya fursaddaas haddii hawshii loo magacaabo ay ku fashilmaanna waxay ka dhigan tahay inay ayagu sabab u yihiin fashilinta oo ayagu ay fashiliyeen madaxdii soo magacowday sidaa darteed waxaa naga go'an inaan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulno wixii bulshadeenna horumar u ah maxaa yeelay annagu wiilal iyo gabdha haddaan nahay adinkaan nahay wiilashiin iyo gabdheen adinkaan nahay walaalihiin waxaa naloo diray inaan dadkiinnan oo annaga dadkeenni ah inaan daryeelkooda ka shaqayno ayaa naloo diray inkastoo ay jiraan duruufo aynaan uga wada jawaabi karayn bulshada baahideeda haddana waxaan la qaybsanaynaa culayska ay wajahayaan bulshadeennu haddii ay nadaafad ka shaqaynayaan waa kala shaqaynaynaa haddii ay amni ka shaqaynayaan waan kala shaqaynaynaa haddii ay ka shaqaynayaan horumar waa kala shaqaynaynaa haddii ay ka shaqaynayaan dib u dhisna waan kala shaqaynaynaa sidaa darteed walaalayaal maantay waxaan u taagannahay mid ka mid ah waajibaadkii naloo idmay kuwaasoo ay ka mid tahay nadaafadda magaalada caasimadda ah inaan ku abaabulno oo aan u horkacno bulshada ku nool bulshooy walaalayaal mudanayaal iyo marweyn magaalada laydinka rabo inaad nadiifisaan
waa adinka magaaladiinni meesha aan rabno inaad nadiifisaan waa guryihiinni meesha aan rabno inaad nadiifisaan waa waddooyinkii aad marayseen haddii waddadu ay wasaq tahay waxay ka dhigan tahay in bulshadu wasaq tahay maxaa yeelay waddadu waxay ka dhaxaysaa dhammaantiinay ka dhaxaysaa qof kasta oo magaaladan ku nool xagguu maraa waddaduu maraa in wasaqdeeda la diido ayaa laydinka rabaa oo nadaafad lagu haayo waxaa laydinka rabaa oo kale in waddada lagu soo durqo inaad diiddaan oo la yidhaahdo waddada waa naga dhaxaysaa ma kaa aqbalayna adiga inaad mitir ku soo durqdo dantaada gaarka ah markaas ayaan heli karnaa magaalo quruxsan waddooyin leh waddooyinku waa kaabayaasha dhaqaalahay kow ka yihiin hadda gurigan halkan ku yaal ama midkaanu waa ka qiimo badan yahay guriga gadaal uga dheggan sababtuna waa waddada haddii gurigaaga oo waddada saaran yahay wuxuu ka qiimo badan yahay guri kasta oo aan waddada saarnayn haddii gurigaaga oo waddada saaran yahay asagana waxaa ka sii qiimo badan kan waddada saaran laakiin waddada uu saaran yahay ay laami tahay sidaas ma tahay sidaas darteed waxaan ku dadaalaynaa inaan waddooyinka laami idinkaga dhigno waxaan ku dadaalaynaa markaan laamiga idinkaga dhigno waddooyinkiinna inaan haddana idin nalayno oo maalintii sida maalintii ay u muuqato habeenkiina ay u muuqato marka intaas aan suuro gelinno waxaan isu kaashanaynaa magaaladaas laamiga aan ka dhignay nalalka aan ku surnay inay amni ahaadaan haddii meeshii la qarxiyo oo khayrbeelayaasha damiirlaawayaasha ay qarxiyaan shaqadii aan qabannay annaga iyo adinka iskaashigeenna maxaa ka soo baxay natiijo la'aan marka inaan ilaashannaa loo baahan yahay guryaheennaa ku yaal ubadkeennaa deggan walaalaheennaa deggan waalidkeennaa deggan uma oggolaanayno damiirlaawayaashu inay siday doonaan ay ka yeelaan ma doonayaan in waddooyinkeennu ay dhismaan ma doonayaan magaaladeenna inay qurxoonaatona ma doonayaan bulsho caafimaad qabta inaan noqonno ma doonayaan arrintaas waxaa u daliilah dad nool oo waddankooda jooga ee xor ku ah inaan noqonno ma doonayaan qofay handadaan qofay dilaan qofay dhacaan oo ay baad ka qaadaan iyo meelay qarxiyaan kaliyahay ka dhigaan ma aqbali karnaa waxaas arrintaas ma aqbali karno aadaad u mahadsantihi arrinta aan sheegaayo ma ahan wax aan ku riyooday wax aan maleeyana ma ahan waa wax dhacay oo aad adinkuna og tihiin oo aragteen waddada afgooye qudaartan waxaan afgooyaa ka helnaa iyo balcad soo maaha dawladda soomaaliya iyada oo kaashanaysa saaxiibbadood haddaadan tabar lahayn oo wax kastoo aad u baahan tahay aadan heli karin mamnuuckaa ma aha walaalkaa inaad u kaashato waxaadan awood waxay la kaashatay dawladda soomaaliya dawlado aan saaxiibna waxay ka bixiyaan dhaqaalo walaalo kalena noo dhisay yidhaahdeen waddooyinka meelaha raashinku nooga yimaad meelaha qudaartu ay nooga timaado yacnii
meelaha webiyada iyo bilicda leh waddooyinka aadan loo dhisaali waxaad ogtihiin waddada afgooye iyo xamar isku xirta iyo waddada xamar iyo jowhar isku xirta oo aad ogtihiin muhiimadda ay loo leeyihiin bulshadeenna u leeyihiin ayaa dhismo ka socota dhismihii koowaad waxaa laga bilaabay magaalada afgooye iyo xamar isku xirta waddada isku xirta waxaad ogtihiin waddadaas waa gebagebo laakiin walaalihii noo dhisaaya maxaa kula dhacay dadkeennii danahooda u soo kallaxay maxaa ex control kula dhacay taasi waxay muujinaysaa sida ay uga xun yihiin annaga horumarkeena iyo nolosheenna sidaa darteed ma jeclaa karno mana aqbali karno mana isu dhiibi karno inayna addoonsadaan ama aan la haysta u noqonno ma aqbalayno waxaan doonayaa marka arrintaas inay dhab naga ahaato midka qarriban gurigaaga qarxinaya kaa qaxinaya wiilkaaga waxbarta dilaaya gabadhaada waxbarata dilaaya qalbiga qoyaanka ka ilaalinayo qalbiga ka qalalay waalan oo naftiisa dilka ka soo bilaabaya inayna u ogolaan dalkeena iyo dadkeena inayna u ogolaan waa inaan ka ceshana waa lagu garab siin karaa dawladaha aan saaxiibkahada nahay garab wayna sii karaan laakiin kaala adigu imaad ee adigu dalkaygii